Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabaday daawadayaal galab wanaagsan oo wacan. Halkani waa Free Time Show oo hadahayo kale galab kasta uga barateen barnaamijyadeennii aanu idinka soo gudbin jirnay Bartan Show Time. Barnaamijyadaasi oo nu aragno kuwo tayo iyo xiiso badanba u leh bulshada iyo deegaanka ummadda Soomaaliyeed gabi ahaanteedba. barnaamijka oo maanta qaybtiisii saddexaad idin soo gudbinaya halkan anigoo ah Maxamed Cabdicasiis. Kahor intaana barnaamijka guda gelin waxaan qadar yar idinka xasuusinayaa barnaamijkii ka horeeyay halkii uu inoo marayay. Beeruhu waxa ay door weyn ku leeyihiin nolosha aadamaha iyo tan xayawaankaba. Bini'aadamku wuxuu beerta u abuuraa si uu ugu noolaado isaga iyo xayawaanka ay dhaqdaanba. xayawaankuna wuxuu sidoo kale gacan weyn ka geystaa bixitaanka dhirta, waayo dhirtu waxay u baahan tahay bacrimiye taasoo luqadda qalaadna lagu yiraahdo fertilizer, taasoo dhirta ka dhigaysa cagaar una sahlaysa in dhirtu si dhaqso leh ku baxdo. Dhirta faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah cunnada, taasoo qayb ka ah jiritaanka aadamaha. Sidoo kale waxaynu ka helnaa daawo iyo hawo, taasoo u fiican neefsashada noolaha dhammaantiiba, kuwooda caqliga leh iyo kuwooda aan lahaynba. sidoo kale waxay u fiican tahay bilicda deegaanka, iyadoo meelba meesha ay ka dhir badan tahay ka qurux badan tahay kana udgoon badan tahay. daawade barnaamijkeena maanta qaybtiisa saddexaad waxaanu ku soo qaadanaynaa habka casriga ah ee maanta wadamada horumaray wax u beertaan. dalalka horumaray xagga maciishada dhaqaalaha maanta dunida ayaa ah kuwa ka faa'iideysta kheyraadka dhulka, iyagoo abuuraya beerista khudaarta kala duwan iyo dhirta kala duwan ee markaa dalkooda iyo dadkiisuba u baahan yihiin. qorshaha xigna uu yahay in loo dhoofiyo dalalka jaarka iyo dunida inteeda kale, gaar ahaan wadamada fuqarada ah ee wax soo saarkoodu aanu ku filnayn, si loo helo dhaqaale ka soo xarooda dalka dibadiisa, isla markaana beeraleydu u hesho suuq fiican una sii wado wax soo saarkeeda beerista dalagga kala duwan. qaabkan maanta wax loo beerto ayaa ah mid u sahlaya beeraleyda inay beerto saacadii dhowr kun oo geed, taasina macnaheedu ay tahay maalin kasta inay beeraan malaayiin geed oo kala duwan, sida basasha, tamaada, salaadka, canabka, rumaanka, saytuunka iyo qaar kaloo badan, sida dhirta indhaha u roon iyo deegaankaba sida ubaxa iyo dhirta kale ee faraha badan ee markaasi deegaanka iyo bilicda u roon. daawade dhammaan wadamadan horumaray waa kuwa juhdi iyo tacab badan geliyay quruxda noloshooda iyo deegaankaba, ee hamoodin in fadhi iyo hadal ku sameeyeen. maxaa kaaga baxay mowduucan? beeraleyda Soomaalidu halkay hankoodu taagan yahay maanta ma jabay oo dalka iyo dadka aan ka waramay ayay gacmaha hoos dhigan? daawade aragtidaada waa muhiim, fikradaada inaad nagula wadaagto iyo wixii aqooneed nagu dhaanto qaybta commentiga, una sii share garayso dhammaanba asxaabta kugu xidhan si ay noola wadaagaan mowduucan ah wacyigelinta beeraleyda, sababtoo ah maanta wadanku waxa uu galay xaalad adag oo dhirtii la dabar jarayo iyo duurjoogtiiba. maanta waxaa jirta in wadanka aan dhir la beerin oo dhirtii Ilaahay beeray la jarayo, taasi oo caalamkan kale ee caqliga badan ee cilmiga badan ay u arkaan qofka dhir jaray, geed jaray inuu qof dilay. inagana dhulkeennii geedkii maalin walba waa la jaraya. haddaba si ay taasi u yaraato waxaynu u baahannahay wacyigelin badan. taasina waxaan u aragnaa barnaamijkan anagoo uga faa'iideynayna ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba inay ka faa'iideystaan oo aanu markaasi gaadhsiino dhagahooda, maadaama oo ayna dadka ummadda Soomaaliyeed jecleen inay wax akhriyaan. waxaanu u aragnaa inaanu maqal ahaan ula wadaagno iyo muuqaal ahaanba si ay u dhageystaan si fudud una maqli karaan. waad mahadsantihiin daawadayaal dhammaantiinba. barnaamijkii maanta qaybtiisii saddexaad oon intaa kusoo koobayo waxaan idinkaga tegayaa anigoo ah Maxamed Cabdicasiis iyo bahda Show Time.
tan iyo intaanu berri ka kulmayno barnaamijka xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabadgelyo.